waxaan la wadaagayaa marka hore macallimiinta Soomaaliyeed hambaliyada aan u dirayo iyaga iyo qoysaskooda iyo caruurtooda iyo ardaydooda iyo saaxiibadood maalintan qiimaha badan ee aan ku xusuusanayno macnaha uu macallinku leeyahay iyo qadarinta uu inaga mudan yahay markii ilaahay qofka bini aadanka uu abuuray ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu sheegay wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون إلهي وحو إذن كسو بحيي على شهويدين إذن كأو آنا وحبا أقون مركا لغا بالله هويدين دشي والدكين دلي غريغين دلي معلمين تاني يبيئد أن كنولين انتبا وحباين بريين أمدوهنا وحي أكلا هرمران سيدا أي وح أكلا برطان wax kale u kala hormaraan malaha dadkuna waxay u kala hormaraan sida ay wax u kala bartaan hadaad aragteen ummad horumarsan ama qof horumarsan markii uu dhalanayay waxba kaama duwanayn laakiin waxba la baray mudana madaxweyne aad iyo aad baad uga warhaysaa xaaladda waxbarashada ee dalkeena markii aan wasaaradda tagay culeysyada aan fiiriyay inta ay la egyihiin waxaanba ku sigtay inaan isaga cararo laakiin go'aan waxaan ku gaaray anigoo kaashanayo xukuumadeena bahda waxbarashada qaybaheeda kala duwan iyo bulshada Soomaaliyeed in la wajaho mushkiladda dhabta ah ee ina haysato sababtoo ah jid aan waxbarasho ahayn oo aan dhibaatada uga bixi karno haba yaraatee inaysan jirin ayaanu xaqiiqsanay waxaa aad u yar inta hesha fursad waxbarasho oo ka yar 30% waxaa aad u yar inta macallin ee tababaran oo ka yar iyaguna 30% waxaa aad u yar fursadaha dadkeenu ay u heli karaan waxyaabaha ay doonayaan inay gaaraan anoo ka tarjumayo barnaamijka xukuumadda dan qaran ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre waxa aan hadaf ka dhiganay marka koobaad in culays kasta oo saaran waalidka Soomaaliyeed oo ka saaran waxbarashada intii laga qaadi karo in laga qaado ama ha noqoto shahaadooyinka ama ha noqoto imtixaanaadka ama ha noqoto wixii kaleeto ee dokumenti ee dawladda Soomaaliyeed ama service ay qabanayso meel kasta oo ardayga Soomaaliyeed uu joogo gobolada dalka sidoo kaleeto waxa inoo cadaatay jidka kaliya ee xaaladda waxbarashada wax looga bedeli karo inay tahay in la tayeeyo macallinka in la doono in qiimo loo yeelo muddo yar ayaan joognaa laakiin jidkii waxa lagu qaban lahaa ayaa inoo cad jidkaas oo ah in macallinka tababarkiisa xoog la saaro kadibna macallinka la shaqaaleeyo kadibna la horumariyo meeshaas waa meesha ay diiraddu inoo saaran tahay waxaan runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa bahda waxbarashada ka guud ahaanteed xilqaanka weyn ee ay soo sameeyeen muddadii la soo dhaafay sidoo kale waxa aan kulamo badan la qaatay madaxda wasiirada dawlad goboleedyada oo intii u suura gashay maanta ay halka nala joogaan saacadan aan joogno magaalada Gaalkacyo waxa ka socota xaflad weyn oo ah xusidda maalinka macallinka oo uu joogo wasiirkeena waxbarashada ee dawladda Puntland iyo bahda waxbarashadana ay ka qayb galayaan maanta ma doonayo aniga inaan war badan iraahdo aniga iyo bahda waxbarashada wax badan ayaan wax isu sheegnay oo aanu ka wada hadalay howlihii ugu dambeeyay ee bahda waxbarashadu ay qabatayna waxay ahayd markii weerarkii bahalnimada ahaa lagu soo qaaday wasaaradda waxbarashada iyo shacabka Soomaaliyeed ee argagixisada ku soo qaadeen inay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee u gurmaday ee gurmad u fidiyay haatana waxa ay ku howlan yihiin in agoontii dadka ay ka dhinteen waxbarasho la siiyo sidii aad adiga talada ku bixisay oo aad inagu amartay bahda waxbarashadu waxa ay ballan qaadeen heer jaamacadeed iyo heer dugsiyaba in dadka ay wax gaareen dadkoodii waxbarasho bilaash ay la siiyo maanta waa munaasabad aad iyo aad inoogu qiimo badan mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynayaa inay kelmadaada maqlaan macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan